waxaa heshiis nabadeed laga gaadhay khilaafaadkii iyo dagaaladii u dhaxeeyay bulshada Soomaalida iyo Cafarta ee muddada socday. kulan ay garwadeen ka ahayd dowladda federaalka oo isugu yimaadeen madaxda labada deegaan ayaa waxaa la isku afkartay in la joojiyo colaadda. labada madaxweyne oo goobtaasi shir jireed ku qabtay ayaa waxaan ku bilaabaynaa turjumaadii hadalka madaxweynaha deegaanka Soomaalida. በአፋርና በሶማሌ ወንድም ህዝቦች መካከል ባለፉት ዓመታት ጀምሮ የነበረው ግጭት ላላስፈላጊ ውድመትና የሰው ሕይወት መጥፋት dhacdadii shacabka Soomaalida iyo Cafarta ee sanooyinka u dambeysay socday kaasoo ka dhashay khasaare nafeed iyo mid hantiyeed. taasi waxay caqabad ku noqotay geedigii higsiga iyo horumarka. hase yeeshee mas-uuliyiinta sare ee xukuumadda federaalka ayaa kulamo dhowaan ku diyaarisay magaalada Addis Ababa si looga gungaadho dhibaatada xalna loo helo. taasina waxay ka soo saartay heshiis iyo go'aamo la isku raacay, maadaama midda ugu horreysa ayaa ah in la joojiyo nafti dhimanaysay lana joojiyo isku dhaca ayay labada deegaan ku heshiiyeen, sida uu yidhi madaxweynaha deegaanka Soomaalida. madaxweynaha deegaanka Soomaalida ayaa sidoo kale sheegay in la isku afkartay in la joojiyo isku dhaca. waxyaabaha keenaya inuu soo noqnoqdo khilaafkani ama uu abuurmo isku dhac dambe ayaa waxaa la isku raacay in laga fogaado waxyaabaha keenaya isku dhac labaad. marka xigtana laga shaqeeyo dadka soo barakacay in goobihii ay ka soo barakaceen lagu celiyo oo qoysaskii Soomaaliyeed ee ka soo barakacay magaalooyinka saddexdaana lagu celiyo guryahoodii. qodobadaas iyo qodobo kale oo muhiim ah ayaan gaarnay. si heshiiskan looga midho dhaliyana annaga way naga go'an tahay ka Soomaali ahaan. sidaas daraaddeed hadda waxaan u jahaysanay sidii dhibaatada xal looga gaari lahaa. waxaa kale oo intaas dheer in su'aalihii isku dhaca abuurayay jawaabtooda lagu raadiyo si saxa oo nabad ah, dastuurkana waafaqsan, taasi oo ah rabitaanka shacabka deegaanka Soomaalida oo mar walba iyagu jeclaa inay nabad waxooda ku helaan islamarkaana aan taageersanayn colaadan. ሀገር በከፍተኛ አመራር በሚመራ መድረኮችም አጠቃላይ ውይይቶች አካሂደናል። መግባባት ላይ በደረስንባቸው ጉዳዮች ላይ ደግሞ እስከታች ሊያሰራ የሚችል እቅድ አዘጋጅተን dhankiisana madaxweynaha deegaanka Cafarta oo isna ka hadlay shirkan jaraa'id ay qabteen labada madaxweyne ayaa waxa hadaladiisii uu ku sheegay in kulankan ay dowladda dhexe garwadeenka ka ahayd ay ku gaadheen go'aan qorshiisa laga shaqeeyay ilaa hoosna loo dhaadhicinayo. waxaana aan gaadhnay buu yidhi isfahan, taasoo ah in la joojiyo xabadda iyo isku dhaca. intaa kadibna la qabto kulamo bulsho oo si sharciga iyo dastuurka waafaqsan lagu dhageysanayo cabashooyinka shacabka lagana shaqeeyo arrimahaas ayaan isku fahanay deegaanka Soomaalida. taana waxaan ku rajo weynahay inay hirgalayso maadaama oo dhammaanteen aan ka shaqaynayno, maadaama oo dhammaanteen aan u baahannahay nabadda. waanu ka shaqaynaynaa ilaa heerar kala duwan ee dowladda federaalka annagoo kaashanna, iyadoo la sameynayo guddiyo dabagallo ku ah hirgelinta heshiiskan oo dowladda dhexe ka socda. waxaanu rajaynaynaa in isbeddel weyn aanu ka samayno isfahankan iyo heshiiskan maanta aan gaadhnay.